wasiiro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka qeyb galay kulan wadaag ah oo looga hadlayay sare u qaadista dalxiiska iyo dhaqaalaha dalka kaasi oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Doodan ayaa waxaa soo agaasimay waaxda dalxiiska ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda Cusmaan Abuukar Dube oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in muhiimaddu ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa dalxiiska dalka si dhaqaaluhu u kordho. Tourism industry-gu wadamada aynu saaxiibkan hay sida Turkiga oo kale wuxuu yahay lagama maarmaan. Dunida oo dhan waxa laga yaabaa Spain, Turkiga, wadamada imika dalxiiska loo tago, Talyaaniga waxay u arkaan dalxiisku haddii in yar ka xumaato in dhaqaalahooda dumayo. Waxa isku xidhan travel-kii, diyaaradihii iyo dalxiiskii iyo hoteeladii iyo maqaaxiyihii wuxuuba saas isugu wada xidhan yihiin. Haddii mid meesha ka baxo inta kale meesha ka baxaysa. Wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Somali ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku hawlan tahay soo celinta bilicda dalka si dalku u noqdo mid soo jiidasho leh loona helo goobo dalxiiska ku wanaagsan. wasaaradda qorshaheeda dhow waxaa ku jiro sanadkan in buundooyinka magaalada Muqdisho goboladana sidoo kale wadooyinka qaar in 2021 hadduu ilaahayna gaarsiiyo gaar ahaan labada buunde magaalada Muqdisho ku yaal in muuqaalka ay hadda leeyihiin aan ka bedelno qorshaheena koowaad ay ka mid tahay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdifataax Qaasim ayaa sheegay in doorka ugu weyn ay tahay helista goobo dalxiis ku habboon taasina ay u baahan tahay wada shaqaynta shacabka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya si dalka looga saaro dadka uga yimid wadamada kale in ay qas iyo fowdo geliyaan si taasi loo sameeyana loo baahan yahay wada shaqayn joogto ah oo dhaxmarta shacabka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. dalxiisada waxaa ka mid ah xeebaha iyo badaha oo dalkeena hadda caanka uu ku yahay sida Cadalle, Warshiiq, muxuu ahaa marka dhankaasi aad Boosaaso, Jaziira meelahaas oo dhan waxay ka mid yihiin dalxiisyada oo xeebaha waxa weeyaan ka mid yihiin waxa laakiin ilaahay annaga uu nasiyo noo dheer meel ay marajal bahrayn yaltaqiyaan baynahuma barzaqun la yaqiyaan oo sida gooboyn oo kala cidii booqatay ama aragtay meel aad iyo aad u qurux badan oo biyaha macaan iyo biyaha dhanaan isaga darsamaan haddana midka kale waxa way aanu ku darsameenin marka waa nimco ilaahay. Wasiiru dowlaha wasaaradda amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya Farxaan Cali Ahmed ayaa isaguna tilmaamay doorka uu amnigu ku leeyahay horumarinta dalxiiska. amnigu waxa uu ka yahay qodobka koowaad oo ay dalxiisayaashu ay warsanayaan. run ahaantii waddankeena haddaad aragtiin meesha uu ku yaallo strategically waxa weeye waa u diyaar amnigiisana gacanta lagu hayaa ilaahay kuma samadiido waana soo jiidan karaa dalxiisayaal kuwa gudaha ah iyo kuwa dibadda ah. Cabdi Axmed Qorane warbaahinta qaranka.